waxaan u wanaagsan asxaabtayda qaaliga markale barnaamijyadeennii markaas waxaan maanta idin tusayaa sida aad u ogaan lahayd kaalinta ama darajada aad ka baxday iskuulkaaga qaabka lagugu shaqeeyo amaba se loo shaqeeyo ama loo qabto ayaa halkan idinku tusaya markaas qaabkan waad ila soconaysaan haddii la yidhaahdo markaad sida marka koobaad waxaa sida wadarta guud loo shaqeeyaan halkan idinku tusaya equal to baad leedihin ama u dhiganta sam iyaad qoraysaan waa af ingiriis ah sam ama waa isuge weeyaan luqada markaas waa la wada dooranaya mid walba cashar walba ama koorsi kasta intaad ka keentay ayaad dooranaysaan inter ayaad leedihiin marka wuxuu kuu shaqaynayaa wadartii guud ka koobaad ayuu kuu shaqaynaya ardayga koobaad ayuu kuu shaqaynaya marka nuuro oo kale ayuu noo shaqeeyey wadarteedii guud intay ka keentay casharada oo dhan markaas hoos baa loo soo jiidaya ama double click baa laleeyahay saasuu wadarta guudka ugu wada shaqaynaya dhammaan markaas celceliskana waxaa loo shaqeeya sidan oo kale isla sidii oo kale aan marayna equal to yaan leenahay average yaan leenahay average markaan nidhaahno kadib aan qorro waxaan wada dooranaynaa koorsiyada oo dhan afarta koorsi oo dhan yaan dooranaynaa darajadii aan ka keennay mid walba yaan wada dooranaa mar keliya inter yaan leenahay haddana wuxuu noo shaqeeyey celceliskii nuuro ayuu noo shaqeeyey nuuro sida kuwa kale aan u gaarsiina ardada kale aan u gaarsiina isagana hoos ayaan soo jiidaynaa saasuu darajadii oo ardada oo dhan noogu wada shaqeynaya hoos usoo wada jiidaya markaas si aan u ogaano kaalintii uu ka galay maxaa la arday walba kaalintii uu galay si aan u ogaano halkan yaan leenahay equal to yaan leenahay ama laba qaab baan u shaqeynaa ama rank baan ku shaqeynaa ama if waxaa la yidhaha conditional if conditional baa la yidhaha oo haddii hebel sidaa yahay sidee buu noqonaya muxuuse keeni karaa ayaa lagu shaqeeya marka if baan isticmaalayna anagu oo sida gradeka loo shaqeeya a b c d aan isticmaalayna haddii la yidhaha if baan leenahay equal if yaan leenahay hadday if u dhiganto hadday u dhiganto celceliska nuuro oo 8.8 maxayga ah hadduu ka weyn yahay yaan leenahay hadduu ka weyn yahay 9 hadduu ka weyn yahay a iiga dhig baan leenahay haddana waan ku celinaynaa if baan leenahay hadduu ka weyn yahay if hadduu ka weyn yahay 8 iiga dhig baan leenahay maxaa la yidhaahdaa b ka dhig baan leenahay koomaan leenahay if baan leenahay iftaan dooranaynaa hadduu ka weyn yahay h2 waxaa noo yaalo celceliskii qofka koobaad aanu noo shaqeeya systemku baa noo yaalo hadduu ka weyn yahay 7 kooma waxaan double quotation aan furaynaa c baan ka qoraynaa ama c iga dhig baan leenahay c markuu nooga dhigo kadib aan ka dhigno wixii intaa ka baxsan baan leenahay ee ka hooseeya 7 fail ka dhig ama d sidii caadiga ahayd fail ka dhig baan leenahay uu dhacay nacam qofkaasi inuu dhacay nooga dhig baan leenahay wixii 60 ka hooseeya ardaygii keenay 60 wax ka hooseeya kadib inter yaan leenahay okay baan leenahay wuxuu noo shaqeynaya ardayga koowaad darajadiisa ayuu noo shaqeynayaa kadib hoos yaanu soo jiidaynaa saasuu arday walba noogu shaqeynaya darajada intuu ka galay marka tusaale ardaydan 8 iyo wixii ka sarreeyay keenay waa b 7 iyo wixii ka sarreeyay 8 inta u dhaxaysay c kana waa lamid oo 8 ku jira iminka ardaygan a da keenay 9 iyo wixii ka sarreeyo a nooga dhig maadaamaanu nidhi oon conditionalka siinay iyuu a u keenay kana sidoo kale c 7 wixii ka sarreeyay 8 gaadhin c nooga dhig maadaama nidhi halkan fail uu ku qoranna waxa weeyaan 60 maadaama ardaygan keenay uu 7 wixii ka hooseeya keenay uu dhacay bay ka dhigan tahay f ama se fail iyo maxaa la asaas ku yahay bay ka dhigan tahay asxaabtada qaaliga inaad fahamteen baan u malaynayaa goob walba goor walba aad joogtaan khayr baan idin rajaynaya si aad barnaamijyadan ula socotaan fadlan follow soo dhah